بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada channelka Warcad Media oo markaasi nooga barateen inaad idin soo gudbino barnaamijyo kala duwan oo xiiso leh waana uga hadalno xaaladda siyaasadeed ee geeska Afrika gaar ahaan arrimaha Soomaaliya waana uga hadalno hadba waxyaabaha isleenahay muhiim ay tahay inay bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ka ogaadaan saaxiibayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad markaas subscribe noo saartaan isla markaana like iyo share noogu dhufataan waa ku mahadsan yihiin asxaabta inta hadda noogu xiran oo markaasi noo ogolaatay inay subscribe noo saaraan dhegeystayaal sharafta leh waxaa markaasi barnaamijka qodobada aan kaga hadlaynaa ka mid ah xaaladda siyaasadda waddanka oo maraya meel cakiran iyadoo markaasi laga cabsi qabo in kulamada socda ay markaa noqdaan kuwa natiijo la'aan kusoo dhamaada maxay tahay dowladda federaalka ilaa hadda sababta ay ugu cagajiidayso inay mucaaradka ay la kulmaan isla markaana ay kala hadlaan ajendayaasha kulanka loo madlan yahay inay labada dhinac yeeshaan sababta ka dambeysay in ilaa hadda ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u joojiyeen ama ay u diideen in gudaha xarunta xalana ay galaan madaxdii hore dalka sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladda ku meel gaarka Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Xuseen Roble oo iyagana soo noqday ra'iisul wasaarayaal markaasi dowladihii ugu kala dambeeyay dalka ka soo noqday iyo madax kale wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal oo markaasi si aad ah u dhaliila siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya haddaba sidoo kale yay tahay cidda dusha laga saaray ama talaabooyinka dowladda ilaa hadda ay qaaday warka ay dowladda ka soo saartay yaan guud ahaan barnaamijka kaga hadli doonaa saameynta ay arrintaasi dhalin karto iyo wax laga cabsi qabo inay markaasi ka dhashaan aynu ku bilownay waxaa xalay soo horistaag xoogan lagu sameeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood oo horey xilal ugu soo qabteen sida madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Roble iyo Xasan Cali Khayre iyo madax kale oo ay ku sii jeedeen hooyga ay ka degeen gudaha xarunta xalane madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland taasoo si aad ugu caraysisay kadib markii ciidamada ammaanka ay ku wargeliyeen inaan la ogoleen inay gudaha u sii gudbaan kadib markii ay sheegeen inay heleen amar ku aadan inaan laga gudbi karin madaxdii hore ee dalka inay u sii gudbaan hooyga ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay degan yihiin halkaasoo lagu waday inay markaasi shir xasaasi ah ku yeeshaan madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa arrintaas aad uga carooday isagoona ciidamada ammaanka ku amray inay tallaabooyin qaadaan balse markii dambe madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ciidamada u sheegay inay isxakameeyaan isla markaana ay noqdaan kuwa mas'uuliyad xambaarsan maadaama halkaas haddii ay dhibaato ka dhacdo ay Soomaaliya markaa ay noqon karto dal mar kale markaasi colaado oo soo food saaro arrintaas ayay markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka war heshay isla markaana durba waxay dowladda Soomaaliya ay soo saartay war oo ay kaga hadlayso arrintaasi ka hor intaysan warka soo saarin waxaa golaha mustaqbalka Soomaaliya ay sheegeen inay shir markaasi ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan hooyga madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxayna isku raaceen inay cambaareen tallaabada ciidanka amniga garoonka Aadan Cadde kaasoo looga celiyay madaxdii hore ee dalka war saxaafadeed ay soo saareen iyagoo markaasi kaga hadlayay waxyaabihii ka dhacay gudaha afafka hore madaxtooyada aan dhahay gudaha xarunta ee alboorka laga galo golaha mustaqbalka ayaa ku sifeeyay tallaabooyin lagu markaasi haldaacinayo wada hadallada iyo niyad wanaagga golaha mustaqbalka ay ka shaqeynayaan madaxweynuhu weli ka howlan yahay ficilada kala geynta iyo diidmada isku imaatinka dhamaystirka shirkani wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Ifi Cali ayaa markaasi sheegay in 5 galabnimo wixii ka dambeeya inaan la ogoleyn in ciidan lala galo gudaha garoonka saraakiil amni oo u sheegay warbaahinta ayaa markaasi in la siiyay amar ah in telefoon oo ka yimid madaxtooyada Soomaaliya lagu amray in la mamnuucay ciidamada lala galayo gudaha garoonka tan oo ka dhigan in markaasi habraaca amniga koowaad ee garoonka ay bedeleen isla markaana kaliya lagu shaqeynayo dekreeto afka ah sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caawa sheegtay in ay markaasi ka xun tahay waxyaabihii markaa halkaasi ka dhacay
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi sheegtay inaan markaa wixii halkaasi ka dhacaysan raali ka ahayn balse ay horay habraacyada galista ciidamada ay soo dejiyeen taasina aysan wax saameyn ah ku yeelan karin madaxdii hore ee dalka Soomaaliya looguna baahan yahay inay u hoggaansamaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadaadis xooggan saaraysa golaha mustaqbalka Soomaaliya oo si aad u dhaliilsan ama markaa doonaya inay madaxweynaha kala hadlaan arrimaha doorashooyinka, dastuurka dalka iyo xaaladda amni iyo abaareed ee dalka ka jirta. sidoo kale waxaa markaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lasoo buux dhaafiyey afafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. waxaa baaqday kulankii xalay ay lahaayeen madaxda golaha mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed. waxaa saakil ay hadda socda kulamo kala duwan ee madaxda golaha mustaqbalka ay Soomaaliya ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho iyagoo uga tashanaya ama ay kala arrinsanayaan waxa ay tallaabooyin xig ay qaadayaan haddii dowladda Soomaaliya ay ku sii socoto sida hadda ay wax ku wadaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa hoygiisa ku booqday ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka iyo madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Al Khayre iyo Maxamed Xuseen Roble iyagoo markaasi kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay dalka gaar ahaan arrimaha gogosha wada hadalka dowladda iyo golaha mustaqbalka. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in gogosha dowladdu ay markasta ay tahay mid fidan isla markaana albaabka markaasi madaxdana uu furan yahay muhiimna tahay in dhinacyada lagala fadhiisto xal u helidda arrimaha taagan ee dalka si dalka markaasi horay ugu sii tallaabsado looguna xoreeyo cadowga markaasi dalka meelna looga soo wada jeesto faragelinta dibadeed ee markaasi lagu sameeyay dalka Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa u muuqday mid markaasi uu kaga hortagayay in ay golaha mustaqbalka tallaabooyin dheeraad ah ay qaadaan islamarkaana ay kaga cabsan qabeen in dhibaatooyin amni iyo dagaal uu dhex maro labada ciidan oo saacado isku horfadhiyay afafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho walow markii dambe madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu iskaga soo laabtay. sidoo kale waxaa ilaa hadda suurtagelin shirkii lagu waday inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen golaha mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya ayaana la sheegay inuu ilaa hadda wax casuumad rasmi ah ama madal goobta uu shirka ka dhacayo ama xilliga uu dhacayo uusan la wadaagin madaxda mucaaradka ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho, taasoo mucaaradka iyaguna u muuqdaan kuwa markaasi fahamsan islamarkaana ay doonayaan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya si aan fursad ugu dambeyntiina ay qaadaan tallaabooyinka xiga. golaha mustaqbalka ayaa la sheegay inay tallaabooyin dhowr ah qorsheynayaan inay qaadaan haddii uu shirkan uu furmo ama uu furmi waaya islamarkaana dowladdu ay diido inuu qabsoomo shirkan islamarkaana lagala hadlo arrimaha xaaladda ka taagan dalka gaar ahaan siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha dastuurka. madaxda mustaqbalka ayaa la soo wariyay inay qorsheynayaan in dowlad kale ay ka bardhigaan ama ay ka garab dhisaan dowladda federaalka Soomaaliya haddii madaxweynaha Soomaaliya uu diido qorshayaasha ama wadahadalka lagu markaasi doonayo in lagu dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka taagan. taasni ay halis ku tahay amniga, xasiloonida iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale wararka intaasi ay ku darayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu qorsheynayo inuu safar dalka dibadiisa uga ambabaxo si uu markaasi waqtiga joogitaanka madaxdan usii dheero islamarkaana ay u daalaan kadibna ay go'aansadaan inay dalka markaasi intiisa kale ama goboladooda dib ugu laabtaan. taasna madaxweynuhu uu u arko inuu markaasi waqtiga uga sii dheerayn karo maadaama madaxweynaha wax ka yar 2 bilood ay wax ka yar 3 bilood ay uga harsan tahay muddo xileedkiisa. ilaa hadda lama oga waxa markaasi dhici doona ama xaaladdu isu bedeli doonta. sidoo kale waxaa markaasi socda cadaadis xooggan oo ay wadaan madasha golaha loo yaqaano G6 ama beesha caalamka oo ay ku cadaadinayaan labada dhinac inay wada hadlaan islamarkaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara amni darro, dhibaatooyin iyo sidoo kale qalqal amni iyo mid bulshaba.
golaha markaasi beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh gelinaya sidii markaa shirkan u qabsoomi lahaa islamarkaana loogu baaqsan lahaa dhibaatooyinka ka dhalan kara waqtiga dowladda u harayna ay tahay mid aada u sii yaraanaysa. qodobkaas ayaan kusoo gebgabaynaynaa dhegeystayaal qiimaha badan intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doono. Nabadgelyo.